tuulada Andaki oo tagta degmada Wajeer Boor ee xigta koonfurta Wajeer ayaa waxaa fal kufsi ah lagula kacay gabar 7 sano jir ah taasoo la sheegay inuu kufsiga amaba falkaasi uu kula kacay nin da'diisa lagu sheegay 40 sano jir kaasoo sidoo kale ahaa aabba dhowr caruur ah dhalay. Gabadhani ayaa waxaa loo soo qaaday isbitaalka weyn ee magaalada Wajeer si halkaasi loogu dabiibo maadaama uu soo gaaray dhaawac aad u daran. Aabbaha dhalay gabadha ayaa ka warbixiyay dhacdadaasi isagoona sheegay in uusan marnaba raalli ka ahayn in kiiskani maslaxa lagu dhameeyo isagoona codsaday in sharciga la horkeeno ninkii gabadha falkaasi kula kacay. gabadha shalay 5 saac xilliga 5 saac la joogo ee dhacdaan dhacda anaga oo meel baadiyo oo fog yaay dhacdadan ku dhacday meel aqal ararkeeda sidii dhulka baadiyaha oo kale kabacdi meesha anoo xoolo arursaday dawlad jooga akhbaar la soo diray telefoon la soo diray waxa la yidhi dhibka soo dhacay cidaadi dib ka dhacay cidii saakala kala aroorey cidlada ahayd yaan gaaray gaarigameer tugtug ah soo qaatay wadadii aan lahayn sanduuq u soo dirsiinayna u soo soconay adigu 8 saac adigu 6 saac la sheegay 5 saacayna dhacday 7 saac 8 saac asgal saac meeshii imaan wax meeshii joogayna ninka dili iyo maamada hooyaday oo dhagoolo ah oo waayeel ah iyo wiil yar 4 jir oo gabadha ku xigay yaa reerka joogay nin baa noo imaaday ninkii wuxuu yiri ilmo kuwiinaan arkay duqdi sidee ku soo tagtay gabadha iyadoo dhiig baxday oo meel taallay duqdi sidaas ay hawsha u dhacday falka sidaas u dhacay marka gabadha waa meeqa jir gabadha falka kufsiga lagu la kacay gabadha waa 7 sano jir angayni dawdi aan wa aroorayni qal'aar meel andaakeena ku magaadeen booliska soo marsay booliska Wajeer Boor waa soo maray kadibna isbitaalka adigu goor xal 8 saac waxay aad maqaan gaareen ku soo ruuxanay yaan 9 saac waxay aad maqaan xaaladda sayid alxamdulillah ilaa ma hadla adigu hadda sidina dibna waa qaada oo hadda wali inuu dhiig joogsadin kala ma qaane inta markaan imaanay alxamdulillah si fiican aan noola baaray waana u soo dhaweey isbitaalka dadka joogi si fiican ay noola macbileen waana la gacan fududay dadkii adigu gabadhii waa la tolay dhakhtarku wuxuu noo sheegay ilaa dib gudaha inuu ay qabto marka ninkii in la soo xiray in kale ninkii hadda wardaafeed waxa nagu leeyahay waa la soo qabtay inay hadda iska fakan doon meesha meel xarig lama aha qof bilaadan baadiye waaye inuu iska fakan doon in kale ma og laakiin waa la qabtay in lagu dhahay marka maxaad codsanaysaan in arrintan kufsiga markuu dhaco waxa dhacday in lagu xaliyo qaab maslaxa oday dhaqameediisu fariistaan lacaga yar la qaado maadaama aabaha gabadha dhalaan tahay maxaa ku qanacsan tahay aniga aabaha dhalay gabadha hadaan dhahay noloshayda ninkaas in aan asaga arag kuma tala jiro dawladda cunugeygi xaqeygi dawladdan kaga codsanaya ninkaas gacan dawlad haduu soo galo maslaxa ma ogolid oo xalay wax maslaxa la yiraahdo oo ninkaas aniga gabadhayda 7 jirkeed saan yeel maslaxa namad way iga suurtoobays sharciga dawladda li mariyay dhaqsoon dhinaca kale mudanaha laga soo doortay deegaanka Ibrahim Uuray mudane Mahad Rashiid ayaa falkaasi ku tilmaamay mid wuxuushnimo ah isagoona ugu baaqay laamaha ammaanka inay tallaabo sharci ah ka qaadaan falka fooshaxun kufsiga ah ka dhacay shalay tuulada leeyahay Andaki ama walcadi meesha loo yaqaan oo gabar yar oo aad u yar da'deeda oo qiyaasi 7 sano loo geystay kufsi u geystay nin weyn oo oday ah waxaan aad u cambaaraynaa falkaasito fashaxun marka hore hadaan la yahay Ibrahim Uuray waxay nagu ahayd baqal haddana waxay nagu imaatay anaga way nagu dhacday marka arrinkaasito waa arrin aan aad uga xumaanahay كحلوان أهم كوميونيتي أهم هذا هاي برانوري وحن باقي دريا لامها أمنية إن كعنت بصدقان نكا سووا فلوكا جيستي نكستون أمن سنة هاي نكا إن حلقة
gacanta lagu soo dhigay waxaan aad ugu mahadcelinayaa nimanka KBR-ka oo ka howlgala magaalada Handaki oo si degdeg ah ninkaasi gacanta ugu soo dhigay haddana waxaan weydiisanayaa laamaha amniga in ninkaas sidii ugu dhaqsaha badan loo geeyo maxkamadda sifa loogu qaado dambiyada uu galay looga jaaziyo. dhanka kale waxa uu ka hor imaaday arrimaha ku saabsan maslaxada oo ay oday dhaqameedyada dhameeyaan xilliga gabar kufsi lagula kaco isagoona sheegay in kiis dambe oo kufsi ahna aan lagu dhamaynin wax maslaxa ah. waxaa kale rabaa in insha Allah aan u sheego bulshooyinka reer Wajeer in arrimahanito kufsiga geysanayo ama dumarka loo geysanayo dhammaan in muddooyinkan aad u soo noqdeen xadkiina ay dhaafeen waxaan markaa bulshada ka baraya ama ka codsanayaa in dadka ayaga ah oo dhibka u geysanayo dumarka ama kufsiga geysanayo in si wadajir ah arrimahooda maaragta laaba looga qaado anigoo og in laga yaabo Soomaalida waxay iska leedahay wax la yiraahdo xeer ama maaragta maslax in arrimaha noocan oo lagu soo celiyo taayida waxaan u maleynayaa waxaan sii horinaysaa dhibaatada maaragta lagu dhacayso marka waxaan u baahan lahay in asna arrintan maslaxa la yiraahdo ama maaragta arrintan kale oo qoys maxalliga qoys ahaan lagu dhameysanayo in laga daayo dambiilaha maaragta lagu qaado dambiga uu sameeyay anag yar oo 7 jir ah ninkii damcay oo dib u geystay wax kale oo ka weyn inuu daaynin ay ila tahay marka waxay jeclaan arrintan way soo noqotay in la soo afgaro si sharciga maaragta la mariyo aad rajeynaya. si kastaba ha noqotee maaha markii ugu horeysay oo fal noocan oo kale ah uu ka dhaco ismaamulka Wajeer iyadoo goor sii horeysay gabar 3 sano jir ah lagu kubsaday gudaha magaalada Wajeer. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta ismaamulka Wajeer.